Till my brother drip like paddling pools or waterfalls. It's all cool, it's all cool. T-bone whip, don't stool, man ain't no fool. Man stay focused, keep my eyes on the ball. Tell me what rules. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dad badan ayaa goorta ay fashilmaan oo ahdaafta ay nolosha ka lahaayeen ka gaabiyaan waxa ay dambiga dusha ka saaraan waxyaalo kale oo aan iyaga ahayn. maanta waxaan idii hayaa qisada ninkii ku dhashay lugo iyo gacmo la'aan maantana milyaneer noqday. haddaba intaanan ninkaas sheekadiisa gelin ayaa waxa aan soo qaadan sheeko kale oo xiriir la leh mawduuca aan ka hadlayno oo ah in horumarinta naftaada ay adiga kugu xiran tahay caqabad kasta oo ka hortimaadana aad ka adkaan karto. sanadii 1958 ayaa nin ku noolaa magaalada New York oo la dhihi jiray Robert Lane waxa uu dhashay wiil. wiilkaas ayaa waxa uu bixiyay magaca Winner oo ah haddii la fasiro guuleyste. isagoo isleh magacaasi waxa uu u horseedi doonaa inuu nolosha ku guuleysto. 3 sano kadib ayaa waxa Robert Lane u dhashay wiil kale. haddaba sababo aan la fahmi karin ilaa maanta ayaa waxa uu wiilkiisii kale u bixiyay magaca Loser oo haddii af Soomaali lagu fasiro noqonaysa guul darayste. haddaba 50 sano kadib nimankaasi xagee ku dameeyeen. ninkii la dhahay Loser ama guul darayste iskuulkiisii iyo jaamacadihiisii waa uu dhamaystay. kadib waxa uu ku biiray booliska New York waxa uu ka noqday dambi baare isagoo dhowr mar la dalacsiiyay. inkasta oo uusan magaciisa qarin jirin oo goorta magaciisa la weydiiyo waxa uu dhihi jiray waxa la yidhahaa Loser. haddana saaxiibadiis waa ay ka xishoon jireen inay ugu yeeraan magacaas iyaga oo magaciisa intay soo gaabiyaan waxa ay ugu yeeri jireen Lou. haddaba waxaa moodaa in ninkaasi uusan ku guuldaraysan nolosha sida magaciisu dhigayay halka walaalkiis uu magaciisu ahaa Winner ama guuleyste isagu xaalkiisu si kale uu noqday. Winner ayaa waxaa xabsiga la dhigay 30 jeer wax ka badan isagoo galay dambiyo aad u fara badan oo ay ka mid tahay guryo uu wax ka xaday, qoyskiisa uu faraha ula tegay, tuuganimo iyo dambiyo kale oo fara badan. ninka kale aan ka hadlayno waa Nicholas Vujicic. waa nin Serbian ah oo ku dhashay Australia. waxa uu dhashay 1982 isagoo ku dhashay xaalad la dhaho Tetra Amelia syndrome oo keenta in qofku uusan ku dhalan lugo iyo gacmo midkoodna. waxa uu ka mid yahay 7 qof oo hadda ku nool adduunka oo dhan oo ay xaaladaasi ku dhacday. hooyadiis ayaa goorta ay dhashay oo aragtay xubnaha ka maqan waxa ay tiri iga kaxeeya kan anigu ma rabe. hooyadiis 3 bilood ayay ku qaadatay inay aqbasho xaalka wiilkeeda. iskuulka ayaa carruurta ku dhibi jirtay isagoo yiri markii uu 10 gaaray waxaan isku dayay inaan isdilo. anuu mar walba ku fikiri jiray inaanan wax qiimo ah aanan yeelan doonin oo dulsaar ku noqon doona intaan ka noolahay hooyaday iyo aabahay. waxa uu yiri hooyaday ayaa maalin waxa ay tustay joornaan lin lixaadku ka maqan yihiin sideedoo kale oo si dabiici ah nolol maalmeedkiisa u wata. tan iyo waagaas waa ku qancay noloshayda oo waxaan talo ku gaaray inaan isu arko inaan ahay qof himad leh oo waxa uu rabo gaari kara. waxa aan goostay markaas inaan keligay isku tashado. dabaasha ayaan bartay ilkahayga keligay baa caddayda oo timaha anaa dhaqda. kama boqo inaan wax isku dayo inaan ku fashilmo. haddaad waxaad rabtay marar badan isku daydid ugu dambaynta waa ku guulaysan doonta. waxa uu sii watay waxbarashadiisa isagoo jaamacadiisii dhammaystay. waxa uu markaa bilaabay inuu ka hadlo iskuullada iyo munaasabadaha uu ku dhiirigeliyo dhalinyarada inay ahdaafta ay nolosha ka leeyihiin ay ku dadaalaan. isagoo markii dambe noqday nin adduunka meelo badan looga yeero si uu uga jeediyo hadallo dhiirigelin ah. isagoo qoray buugaag dadku aad u gateen waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu ka helay mashruucyadaas $500,000 ilaa $1 milyan. Nick Vujicic ayaa waxa uu leeyahay xaas iyo 4 carruur ah isagoo hadda degan gobolka Texas ee Mareykanka. haddaba waxaan u soo qaadanay sheekooyinkan inuu qofku ogaado nicmooyinka uu Ilaahay ku manaystay haddii uu maskaxdiisa iyo lixaadkiisu u nabad qabaan waana inuu qofku u shaqeeyaa sidii kor u qaadi lahaa noloshiisa una gaari lahaa himilooyinka uu tiigsanayo. haddii aad ka faa'iiday fadlan like garay haddii kalena dislike samay. intaan mar dambe kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullah. Till my brother drip like paddling pools or waterfalls. It's all cool, it's all cool. T-bone whip, don't stool, man ain't no fool. Man stay focused, keep my eyes on the ball. Tell me what rules.